qaar ka mid ah madax dhaqameedka iyo waxgaradka gobolka Sanaag oo magaalada Ceergaaba kula hadlaya warfidiyeennada ayaa ugu horreynba ka hadlay dhismaha wadada tabca ee gobolka Sanaag iyo dekada magaalo xeebeedda taariikhiga ee Ameer iyo waliba sidoo kale khayraadka beeyada ee gobolka Sanaag uu caanka ku yahay oo ay sheegeen in aan beeyada gobolka Sanaag Hargeysa laga mataanay isla markaana xukuumadda looga baahan yahay inay ka hor qaado caqabadaha hortaagan iibka beeyada oo ay sheegeen in haatan uu xayiran yahay iibka beeyadu waxaana iyagu arrimo kale ka hadlaya hadaladoodii ka mid ahaa abartii loo lugays isla waxaan jirtay beeyada waxaan la yaabay waxa ugu darxiyada la yaabay waxa weey cid baa isku tuurtuuraysa waxaan maqlayaa dad fara badan ka tagay wala beeyaan soo furayna waxaan maqlaynaa xaqoo waxa ka jira ka oo iyana wax kala jiraan horta beeyada toona sida xoolahayn hadday dawlad jirto maxay systemkii looma ugu maamulaya ay u maamulaya waa maxay maqaawilka iyo warka waa maxay waxa kana xukuumadda waxaan leeyahay waxaanu sax maaha arintanu sax maaha waxaanu sax maaha ama waxaanu wax government iyo dawlad qaab dawlad u socda ama ha noqdeen wax si kale oo dukaan indiisa ha noqdeen laakiin waxaan isku turtur wax in biisa wal macquul maaha taana taasaan markayna dhaxad wax weeye beeyadii oo iyana xiran sida kalluunka ayay u xiran tahay oo meel allaale meel ay maanta fooda loo saaraa aanay jirinba sida beeyadu waa iyadu beeyadii sida kalluunkii loo xiray u xirantay meelan u raacnaba hadda garan mayno cid allaale cid u xirantay dee maal la iibsado maal la guro cid u xirantay garan mayno shirkadaha isku haya aan cidina dhex gelin marka insha Allah iyada leen kale un baan u galeynaa haddii alla yidhaahdo salaam ta kale waxay la tahay xukuumadda imika meesha ka jirta sidaynu dee aaminsannahay kule anigu mucaarad baan ahado ka mid mihi rayiga xukuumadda iyo wixii taageero midna ka mid yihiin laakiin waxay ku habboon tahay wuxuu mucaaradku cusubay toosin 9 casho iyo wax dheer xukuumadda kulmiye cusub meesha imika way joogto 9 casho wali uma muuqato dariiq toosina oo ay martay wali ma muuqato waxaan maqlaynaa wasaaradda adeelka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysigu waxay soo saareen wareegto ay ku xanibayaan kalluunka yar ee dadku ay gurtaan horta marka horeysa waxa ka horeysa xukuumaddu markay tallaabaan qaadayna tallaabada horta maxaa ka horeeya tallaabada horta adeer maxaa dadka horta maxaad ugu talagashay waxyaabaha yar ee sharci ilaa la suura inta dhowr kun oo bini aadana ku nool kalluumaysiga ka gurtaan waxaasay ku macnaasan gaafadhi marka waan xeeyaa meeshan horta maxaad dadka ugu talagashay waxa weeye gobolkan oo aan badda ku xiran tahay madaarku ka xiran yahay meel waliba ka xiran tahay meel walba iyadoo ay ka xiran tahay ayaa haddana wax la sii xiray kalluun yar oo aanu la yiri bisha 6deeda ayuu maalinta Jumcaha ku egtay kalluunka in la yiri waa la xiraya kalluunkii waa la xiray halka oodaha loo soo rogay sidii lagu dhawaaqay waxa la dambeena ma aanu maqal dadkii halkaas ku shaqabeelaya intii halka ka shaqeyn jirtay halka waxa kale jiray gobolku xoolo buu lahaa xoolihiina imika abaartiina waa madhisay maraba dhoofaan kaloo dhan waa la bilaabay hadda la wada dahfuraya iyada dekadaas meel martay lacagteedii meel martay ma hayno waxaanu garan kari lahayn cidaanu kala xisaabtamayno hay'adina waxay leedahay lacagtii waa la hayaa iyo lama hayo meel martana garan mayno dawladuna arrimaha caynkaas iyo gobolka ahaanba ma khusayso ma cid ka khusayso ka hadashaa ma jirto waxaan u sheegayaa iyadoo aanu maqalay in la leeyahay gobolka kan in badan oo xagga buuraleyda ah amaan maaha amaan weeye annaga joogna annaga war waxayna annaga ka bilaysa annaga ka askariya wixii aan dawladda ahayn inta kale oo dhan annaga ka askariya intaana waxa weeyaan amaankeeduna waa sugan yahay dadku tahriibta ma yaqaaniin dhuxusha ma yaqaaniin boobka ma yaqaaniin